السلام عليكم kusoo dhawaada channelkeena Cabdiqani Sakiin oo aad ka baran kartaan luqadda Ingiriiska iyo Carabiga iyo Soomaaliga. Fadlan waxaan ka codsanayaa dad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto, like noo saarto, kadibna aad u share gareyso saaxiibadaada si ay ugu faa'iideystaan casharrada aan mar walba soo gelino. Maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay cashar aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan love conversation English Somali part 1. wuxuu ku saabsan yahay sheeko jacayl waana qaybta koobaad insha Allah taala la socod wanaagsan qaybta labaad si soo ku dhaafin subscribe sar meeshan waxa wada hadlaya wiil iyo gabar wiilku waxa la Cabdi gabadha waxa la Maria Cabdi wuxuu leeyahay hello haye sweetie how are you macaani sidee tahay sweetie how are you macaani sidee tahay waa wiil iyo gabar muddo yar badan kala maqnay oo kala mashquulsanay oo maanta soo laabtay waayaan Maria waxay leedahay gabadhu waxay leedahay I am not fine anigu ma wanaagsan dabcan gabadhu way xanaaqsan tahay waxay tiri anigu ma wanaagsan ma fiicin wiilku wuxuu leeyahay why sabab what's up maxaa jira gabadhu waxay tiri because sababtoo ah you are not caring about me nowadays adigu ima danayso baryahan You are not caring about me nowadays. Adigu baryahan ima danayso aan ku arkay. Wiilku wuxuu yiri, sorry dear. Qaliyay, raali noqo. I am struggling with my examination. Imtixaanka ayaan la xarbinayaa, imtixaanka ayaan ku mashquulsanahay oo saan natiijo fiican ku heli lahay ayaan ku guda jiraa. Gabadhu waxay tiri, so marka you mean you don't have to care about me? Macnaha maxaa ka wadaa haddaad imtixaan ku mashquulsanahay inaad aniga danayso mahmiya? ay ku tiri wiilku wuxuu yiri no sida maaha things are not the way you are thinking hawshu uma socoto sida aad adiga u malayso wax uma jiraan ayuu yiri gabadhu waxay tiri okay haye all in all leave me alone ala kulli xaal amaani si amal ay ku tiri all in all leave me alone wax walba jiraba amaani si ay tiri wiilku wuxuu yiri why sabab dabcan asagu wuu jecel yahay ayadana way ka xanaaqsan tahay why sabab what's happened maxaa dhacay oo maxaa jir gabadhu waxay tiri you know it's wax jir waa og tahay why are you asking me maxaad aniga ii weydiinaysaa wax jir adigaba waad og tahay maxaad aniga ii weydiinaysaa dabcan mashquulkan wax ka weyn ayaa jira umaleeyaa gabadhu wiilku wuxuu yiri surely dhabahantii I am not aware of anything anigu wax aan ka warhayo malahan waxba lama socdo ayuu yiri gabadhu waxay tiri okay haye let us have a seat aan fariisano I will tell you aniga ayaa ku sheegaya insha Allah taala nala socod wanaagsan qaybta labaad sheekadan waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan aysan ku dhaafin qaybta labaad la socod dabcan wax weyn ayaa dhici doona umaleeyaa subscribe sar like share and comment wixii farna waxaan ugu soo gudbin kartaa qaybta commentiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh